waddanka lagu magacaabo jasiiradda Maldives waa waddan jasiirad ah oo ku yaala badweynta Hindiya. Jasiiradda Maldives waa waddanka ugu yar Aasiya, waana dowlad Islaam ah oo inta badan dadka ku nooli waa Muslimiin. 78 sannadood wax ka badan waxaa xukumayay midowgii boqortooyadii Ingiriiska oo badiba gumaysatay waddamada caalamka badidooda. Maldives waxay boqortooyadii Britain ka qaadatay madax-bannaanideeda sanaddu markay 1965. Maldives waa xubin ka tirsan ururka lagu magacaabo Commonwealth. taariikhda jasiiraddan waxay sheegaan daraasado lagu sameeyay luqadaha iyo cadadka waddankaasi in dadkaasi ay soo gaareen taariikhdu markay ahayd 300 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. waxay kaloo sheegaan daraasadahani in ay dadkani ka yimaadeen qaaradda Aasiya, waxay ahaayeen ugaadhsadayaal, kadib waxa ay degeen jasiiradda waddanka Maldives. badweynta Hindiya ayaa saameyn aad u weyn ku yeelata cimilada jasiiradda Maldives. marmarka qaar waxaa xayirma xaraaradda iyo dhaqdhaqaaqa jawiga halkaasi oo marmarka qaar la dareemo hawo xidhan. darajada xaraaraddu waxa ay u dhaxaysaa inta badan sanadkii 24 ilaa 33 darajo. waddan walbaba wuxuu leeyahay siyaasad u gaar ah. siyaasadda jamhuuriyadda Maldives waa mid ku salaysan jamhuuriyad leh madaxweyne doorashadiisu ay dhacdo 5 sanaba mar. sanadku markuu ahaa 2004 Diseembar 26 markii uu ku dhuftay dhulgariir baaxad weyn lihid badweynta Hindiya, waxaa waddanka Maldives jiiday mowjado lagu magacaabo tsunami. waxaa ka badbaaday kaliya 9 jasiiradood halka 56 jasiiradood ay qarqoomeen. waxaa halkaasi ku dhintay dad gaaraya ilaa 108 qof. jasiiradda Maldives waxaa lagu qiyaasaa ilaa 1190 jasiiradood in ay ku yaalaan isla jasiiradda.